maanta waxaan joognaa manbacul culuum manbaca la yidhaahdo madrasada barakaysan ee soo jireenka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo halkan ka hirgeliyey waa madrasadii raqayda. waxaa lagu bartaa culumta shareecada islaamka kala nooca ah, labada fanni oo fannina la yidhaahdo fannu shariica, midna la yidhaahdo fannul aala. qaybtan gaar ahaan waxaa lagu xifdisiiyaa ardada kitaabaha asaasiga ah oo leeballada kala duwan leh, oo la doonayo inay ardadu ay korka ka qabtaan qaybta caqaa'idka, qaybta fiqhiga, qaybta tasawufka, qismiga xadiidka ee luqa alcarabiya, wahaakada step by step ay u socon doonaan insha allahu tacaala, sidii awalba waxbarashada tartiibteedu ay ahayd. wayna ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala. waxaana rajaynaynaa inay maaragtay wax ku bartaan ardadu, si fiican ay u bartaan, kutubta si fiican u xifdiyaan. ilaahay waxaan weydiisanaynaa fahmiga in ilaahay u fududeeyo ardada oo fahmada ilaahay u furo, cilmiga ilaahay fahamsiiyo, camalfalkiisana ilaahay ugu daro, naftooda kuwa anfaca oo eheladooda anfaca oo muslimiinta anfaca oo deegaankooda anfacana ilaahay uu ka dhigo, dhaqankooda dhaqan wanaagsan oo hagaagsan oo shareecada islaamka waafaqsan oo dhaqanka islaamka laga rabo dhaqan ahna inay yeeshaan ilaahay ka rajaynayna insha allah. bidcada iyo gaalada iyo fasaadka intaba ilaahay inuu ka xifdiyana waa rajaynaynaa. iyagana waxaan u dardaarmaynaa inay dadaalaan, man jadda wajad, dadaale waa gaaraa wixii uu ku dadaalo. marka qof walba qofka kale waxaa la rabaa inuu kula tartamo dadaalka xaggiisa, xifdiga casharada, camalfalka diinta islaamka, cibaadada ku tacalluqeeda, waarinimada waalidka. marka intaasna inay iyagu ku dadaalaana la rabaa. maanta waa maalin imtixaana laga qaadayaa ardada. qof walbana waxaa la fariisinayaa leebelka uu joogo haddii ilaahay yidhaahdo dhinaca kutubta xaggooda. marka sidaasna loo ogaado madrasadaas sidaasay maaragtay ay ku shaqaynayso, ay ku furan tahay haddii ilaahay idmo. marka dadkana waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan oo dhallaankooda ay keenaan oo markaas uu ka faa'iidaysto culumta halkan ka socota, si maaragtay uu naftiisana ugu anfaco, iyagana ugu anfaco waalidiintoodii iyo muslimiinta dhammaantood.